waxay ku dhacday caqabad oo marar badan igu hor istaagtay inaan wixii aan duubayay dadku si fiican u gaari waayeen. Haddaba maanta halkan waxaan fadhiyaa bal inaan ku tuso caqabadaas waxay tahay iyo si aan u xalliyo. Asalaamu calaykum waraxmatullaahi tacaala wabarakaatu. Soo dhawaada. Muuqaalkan si hubanti la'aan ah ayaan u duubayaa. Haddii waxyaabo aan macquul ahayn insha Allah ay qabato, yara dareen inaan ugu tiragelin inaan muuqaal fiican duubo. Waxaa jirtay caqabad in badan haysatay taasoo haysata qof kasta oo damca inuu wax duubo. Haddaba maanta waxaan kula wadaagi doonaa caqabadaas iyo sida aan u xalliyay. Haddaba caqabadani waxay haysataa qof kasta oo damca inuu wax duubo, ha noqoto muuqaal, ha noqoto cod, ha noqoto wax walba ha noqoto. Walow kan hadduu rabo inuu WhatsApp face duubo. Haddaba maanta halkan iga daawanaysid waa qolkan wax ka soo dhex duubo markaan rabo inaan wax duubo, ba koorsan diyaariyo amba muuqaal aan sameeyay. Inkastoo ay igu dambeysay inaan YouTube amba meelahan hadda iga daawanaysa aan wax soo dhigo sanad 2023 ayay igu dambeysay filayaa si caadi ah. Marka laga tago waxaan ugu tiragelin inaan sidii hore u soo dhigo. Waxaa jirta mararka qaar aan si dheeliyana wax u duubo amba noqoto koorsan diyaarinaya amba wax kale ha noqotee. Waxay ku dhacday caqabad oo marar badan igu hor istaagtay inaan wixii aan duubayay dadku si fiican u gaari waayeen. Haddaba maanta halkan waxaan fadhiyaa bal inaan ku tuso caqabadaas waxay tahay iyo si aan u xalliyay. Bal horta isku soo yar dhawaan. Aan kula wadaagay caqabad in badan haysatay in badan aan xalkeeda raadinayay waxay ahayd. Markastoo aan isku dayo inaan qol sidan u yar oo gidaarkiisana muuqanayo, soo kale gidaarkiisana kalena aan gacanta la gaarayo haddaan siraahdo cod ku dhex duub. Waxaa dhacaysay inuu gidaarkan igu sameeyo echo, soo kale kana igu sameeyo echo, amba uu igu sameeyo cod noqod. Kadibna codku wuxuu ku soo noqonayaa mikrofoon kasta isticmaal. Mikrofoonka wax ku isticmaalaysid amba wax ku duubaysid isagoo 3 jeer ayuu ku soo noqonaya haddii gidaarka fadhido kale amba qol kugu yeeriyo amba speaker ku dhex jiro. Kadibna mikrofoonku wuxuu qaban kari waayay jiray amba uu qaban kari waayaya haddii aad qol yar wax ku dhex duubaysid wuxuu kala garan waayay codka saxda iyo codka ekada ka soo baxaya. Kadibna sida caadiga mikrofoonadu waxay leeyihiin wax la yiraahdo noise reduction amba inay naaqusaan amba meesha wax ka saaraan wax la yiraahdo noise. Haddaba markuu soo celiyo gidaarkan codka nacdo soo celiyo aduna codku hadashid mikrofoonku wuxuu tari doonaa codad fara badan oo codka ka mid ah. Waliba haddii uu yahay mikrofoonkaas mikrofoonada fiican ee la isticmaalo hadduu Bluetooth yahay hadduu kanaan isticmaalayahay inta mid kasta wuxuu leeyahay noise reduction say u kala fiican yihiin noise reduction koodu kuwa carqaladeyn doona markuu ku soo noqonayo noise fara badan amba uu codkaagu sameynayo echo. Haddaba saasay tahay in badan oo idinkeeda midayay waxa laga yaabaa inaad dhowr mikrofoon bedesheen. Anigu waxaan isticmaali jiray camera isticmaali jiray. Marar badan waxaan isdhiiyay ciladu waxa weeye mikrofoonkan. Markaan dareemo inaan markaan codkaygu socdo inuu meel naaqusayo codka meel uu dalacayo grafku waa dareemi kartaa marka greensiina codku isku mid ahayn. Amba meelaha qaar buu deeminayaa oo sii deynaya kii oo kadaha kii kale caadiga ahaana uu meesha ka saaray. Saasay tahay waxay ku dhacday inaan marar badan mikrofoon iska bedelo kan oo kale 2 jeer oo kale iska bedelay isagoo aan ciladu ahayn mikrofoonka ay tahay cod noqodkan igu sameeyay gidaarka. Haddaba ciladaas ayaan in badan isku dayay balse aan xalin. Haddaba si caadiga ah dhamaantii wada ogtiin stuudiyada caalamiga ah amba stuudiyada caadiga waxa loogu talagalay wax celiya ekada amba cod noqodka amba codka nuuga oo leh maxay tahay meelo kala sareysa amba traffic kale meelahaas kala sareysa oo ah codku markuu ku dhaco gidaarka inuu haddana hoos ugu dhaco amba codkii nuugaya stuudiyada inta fara badan wad ku aragtay halkan oo idin soo dhigay. Haddaba qalabka yari intan buu leeyahay haddii aad dalbatid waxa laga yaabaa inuu transportation ku kaliya oo isagiisa ka qaali noqdo oo ka qaalisanaado. Saasay tahay waxa laga yaabaa marka aad joogtid xaggan wadamadeena Afrika inay kugu adkaato inaad heshid qalabkan oo kale si waxan wadamada geeska. Haddaba waxaan isku dayay wax ii buuxin kara booskii qalabkii raay nuugaya codka amba codka celinayay booskiisi ii galaya aan ka heli karana meel kasta oo aan hay'ad laga heli karin qalabka caadiga ee caalamiga. Haddaba waxaan maanta jeclaystay inaan kula wadaago habkan uu xaliyay adiguna aad isku dayday inaad xalin kartid. Su'aalahan kala dhalinyar fara badan aba muuqaalo fara badan oo meelaha lagu duubay inta badan waan aragnay waxa dhacaysa qofku codkiisii waxa laga sidii qof recordka dhex hadlayo kala ayaad moodaysa. Waxaasina waxa weeyaan waa ekada amba codkan ku soo noqonayo. Mikrofoon fiican bay isticmaalayaan laakiin se hadhow haddii istiraahada si walba codka uu dhigay wuxuu baa la moodaya qof codkaasi markastoo la dhigarayo amba magaranaysa fixer la sii saaro amba si filter garayo wuxuu noqonayaa cod si fort maanaya. Haddaba anigu waxaan dayday wax bedelka ii gali kara qalabka yar ee buusha ka samaysan ee celinaya codka amba codka nuugaya. Dad fara badan waa loo xaliyaa waxa la sameeyay gidaarada lagu dhajiyo waxyaabo kuuskuusan kuwaas oo gidaarka smooth markastoo gidaarku smooth yahay amba uu salaxan yahay wuxuu sahlaya inuu codku kugu soo noqdo. Laakiin haddii gidaarku yar kala sarsareeyo oo kale amba ay meeshu aad u weyn tahay oo kale waxa laga yaabaa inaan wax fara badan oo cod kugu soo noqon. Haddaba waxaan isku dayay inaan xalliyo amba aan xal u raadiyo anoo joogo wadanka gudihiisa. Haddaba iminka qolkan aan dhex fadhiyo sida xaqan kaaga muuqato oo kale waxa xagan iga dhigsan gidaar madow ay xagan iga sida caadi ah gidaar ma aha. Xagan oo kale waxa iga xigay gidaar
qolkan waxa laga yaabaa inuu noqdo xaggan waa mitir iyo 80 xaggan kalena waa 2 mitir amba 3 mitir saas oo waa qol aad u yar waana adagtay inaad qolkan codka yar ee ka soo baxay albaabka u xidhay marka aan hadlo wax cod ay ku soo noqonaya ma jiraan amba codkayga ma dabaqinayo si markii hore oo kale haddaba maanta waxaan jeclaystay inaan kula wadaago habka aan cilada u xaliyay iyo si aniga ila muuqatay adiguna ay kula fiican tahay amba aniga ila muuqatay in adigana ku anfacayso tusaale ahaan aan ka bilaabay gidaarka hadda xaggan iga xiga gidaarka hadda xaggan iga xiga waa gidaarkii caadiga ah xaggan hadda waxa iga xiga gidaar madow gidaarka madow wuxuu ka samaysan yahay oo marada waxa ka hooseysa buushka waxa ka soo hoosiyay gidaar waxaana isku haya xabag buushkani caadi waan ku tusi doonaa waa buushka inta badan laga sameeyo furaashyada amba fadhiyada aduu waxyaabahaas oo kale laga sameeyo waa buushka weeyar tree baa la yiraahdaa xagga u sare waxa weeyaan 2 mitir waa 2 mitir iyo 20 weeyaan kor ayuu yahay sidana waxa weeyaan waa mitir iyo 22 kaano 2 mitir iyo 20 amba 2 mitir 40 labada mid ahayd waqti hore ugu dambeysay marka gidaar qolkan yar aan ku dhex jiro dhamaantii waxa ku wada wareegsan buushkaas oo ay ka sareysan maro madow inta badan waad arki doontaa meelo fara badan lagu isticmaalay marada madow oo kaliya waxa laga yaabaa inay ka hooseeyaan wax celinaya codka anu hadda waxaan isticmaalay codka inay iga celiso buushku wali buushka aan ku sheegayaa waa buush aad u dheer inta badan meel walba uu yaala waxa lagu isticmaalaa in laga sameeyo furaashyada iyo fadhiyada iyo waxyaabaha noocaas oo kale ah buushkan ayaa inta gidaarka saa ugu dharreysid ayaad hareertan aad kaga laabi doontaa maro si ahaan maro yara shibaga si aanay buushka u wada baxaadhin hadday maradu noqoto maro smooth oo aad isku dhagsan oo aan waxba ka dhex bixi karin waxa laga yaabaa in iyada laftirkeeda kugu sameyso cod noqod buushashku way kala yar yihiin waxa ugu jaban baan filayaa kan oo xaggan waa 3 centimeter aduu 3 baa la yiraahdaa meel walba waa laga heli karaa si aan u isticmaalayna haddii aan ku sheego aduu qolkaagu intuu leeyahay adaa yaqaana adaa garanaya intaad leekaysiinsid laakiin sida aduu kan ayaan ku dhijiyay gidaarka kadibna maro ayaan ku sii daxaaray kan inta aanan ku dhijin gidaarka amba xabagtan caadiga ah ee 990 ee koolada la yiraahdo dad marisid maradana saa ugu dul dhiji kadib gidaarka ku dhiji si fiican ayuu gidaarka ugu qabsanay marka buushashku way kala duwan yihiin mid waa 64 saas oo kala sarsareeyaan xagga u kala sareeyaana waa xaggan qarada inta leeyihiin marka hada yaqaan qarada buushka isticmaalayso inta leeyahay tusaale ahaan kan minkan isticmaalay gidaar ugu dhagsanay waa 3 marka la leeyahay waxa laga hadlayaa xaggan balciisa saaray laga hadlayaa kadibna gidaarka ayaa saa ugu dheerin doontaa gidaarka marka saa ugu dheerisid marada aan ku sheegay ayaa dul marin doontaa amba ayaa dul saari doontaa adaa yaqaan si aad u xalinaysid sida marada u dul saaraysid anu siyaabo fara badan baan u xaliyay wixii yarna waan jarjaray oo uu jarjarmayo wala yaqaan uu jarjarmaa wixii kalena uu saarnaa hadda waxaan filayaa inta wixii ka dambeeyay inaad fikrad buuxda ka haysatay sidii aad u xalin lahayd haddii ku haysatay ciladaasi amba haddii aanad ku baraarugsanayn inay wax ku yeelayn karto marka aad ku duubisid gidaar agtiisa codka kuu soo noqonaya amba isla codkaagu inuu ku noqon karo caqabad haddaba qof kasta oo cod duuba amba muuqaal duuba waxaan jeclaan lahaa inuu habkan oo kale isticmaalo dhinac walba ha isticmaalo hadduu xitaa intuu softi kuuskuuso oo gidaarada ku wareejinayo oo uu ka ilaalinayo gidaarka smoothka ah si walba u xalin kara si walba u xaliyay laakiin se mar leeyahay waxa yara qurux badan in codka uu noqdo safiix amba uu safiix ugu soo noqdo mikrofoonka way kala duwan inta badan marka meel gudaha lagu duubayo tusaale ahaan oo kale waad aragtay haddii aad qol maaran dhex istaagtid oo aan waxba dhex oolin aad tiraahdo cod amba hadalkaaga 5 jeer buu ku soo laba jeer noqonaya amba dhowr jeer oo fara badan laakiin haddii ay qolka wax dhex yaalaan oo sariir yaalaan oo daahi ku xidhan yihiin qolkaas waxa laga yaabaa inaan wax adag ku soo celin waana say u badan tahay saas oo kale markaan qol maran dhex fadhiisano aan rabno inaan wax duubno amba aan rabno meel aan wax ku duubno inuu noqoto qol u gaar ah wax duubista haddii aanad qolkaas waxyaabo fara badan iskaga xidhan amba aan iska nidaamin waxa laga yaabaa inuu ku carqaladeeyo codkaaga amba codkaagan aad duubaysid isla codkaaga inuu ku carqaladeeyo saas ay tahay haddii qolku weyn yahay oo aad waasic yahay waxa ku xalin kartaa daahiyo iyo wixii la mid ah iyana qolka wax dhigid sidoo kale iyo kabadhiyaha sidoo kale laakiin haddii uu qolku aad u yar yahay waxa laga yaabaa xitaa daahiyada inuu codku ka dhex baxaanba uu soo noqdo oo xitaa dhulka laftirkiisa ayaa laga yaabaa inuu codka soo celiyo inta badan laakiinse labadaas side haddii iska xalisid xagga dambana dib background bay ku noqonaysaa mar libaada wax dhigaya labadaas side codka uu ka soo noqonay haddii iska xalisid waxay badan tahay inaad intii badnayd aad xalisay ma garan karo muuqaalka meel ka daawanaysid laakiin wax filayna labada channel mid kamid ka daawanaysid haddii aad hore halkan ay kugu subscribe garaysan mahadsanid like kaliya saar haddii aynu isku cusubnahayna insha Allah waxaan isku dayi doonaa inaan wixii dambe halkaas joogto oo isticmaalo fadlan subscribe gareem sidoo kale waxaan jeclaan lahaa inaad gaarsiisid muuqaalkan amba aad ku mishin garaysid qof kasta oo wax duuba isla oran kartid ciladani si unba haysataa amba uu la dabaalanaya si walba u xaliyay muuqaalka gaarsiin kartaa aad iyo aad baad mahadsantihiin